السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud casharkan wuxuu noqonayaa casharkeeni tobnaad ee ku saabsan QuickBooka maantana waxaan qaadan doonaa insha Allah taala qaabkii aad xogtaada backup ugu sameyn lahayd si aad uga hortagto in xogtaadu ay ka lunto oo waxa weeye xogtii company-ga aad ku ido marka backup kan marka sameynayso waxa fiican aad asbuuci oo kaleeto aad mar backup ku sameyso badad backup sameyso waxa ku badbaadaysa xogtaadii hadii lacal ay ku timaado computerkaaga oo kale ama laga xado ama hawlo kale ay ku yimaadaan computerkaaga ku yimaado oo xogtiisa uga baxdo waxa weeye xogtaadii waa ku badbaadaysa marka waxaynu maanta dhiganaynaa waa qaabkii aad xogtaada backup ugu sameyn lahayd si khataraha badan aad uga badbaadiso xogtaada marka ugu horeysa waxa tagaysaa halkan ay ku qoran tahay file kadib waxa soo furaysaa backup to my company file marka soo furdho waxa dhehaysaa backup okay marka waxa sameynaysaa grid local backup baa dhehaysaa kadib intana ku soo baxaysa labadan option baa ku soo baxaya online backup iyo local backup marka waxa sameynaysaa dooranaysaa waxa weeye waa local backup weeye kadib waxa sameynaysaa next waa ku dhufanaysaa kadib waxa weeye meeshii already waxa weeye waa ii doorantaa aniga okay next waan dhahayaa goorta xagee marka ku dhignaa buu yiri waxaan dhahayaa oo kaleeto hadda waxay dhigtaa desktop ka dhig mar hore aanu save gareystay marka wuxuu leeyahay waxa weeye location kala hadda ku save gareystay laakiin waxa la change the location ka bedel save saasu waxa weeye xogteedii backup igu noqotay oo aan hadhow kala baxaya flashaan kala baxaya ama mobile-kay kala baxaya marka tani waxay ka caawinaysaa in si sahlan aadan xogtii company-ga aad intaas oo bilood oo kala soo waday inaan si sahlan ku waayin mar haddaad xogtii aad intaas oo bilood shaqadii aad soo wadan haddaad weydo runtii waxa weeye adigana waxa weeye kuma fiicna shaqadaadina uma fiicna company-gaagina uma fiicna aad u shaqeynaysay marka qaabkaas aad uga hortagaysaa markasta wayna jiraan in qaabab badan oo waxa weeye policy u degsan baa jira shirkadaha waaweynka oo kale qaab ay uga hortagaan in waxaan oo kale oo qofka shaqaalaha oo kale ay ku caawiyaan balse haddii aad adigu oo kale aad ganacsigaaga aad QuickBook oo kale aad ganacsigaaga ku shaqeynayso qaabkan aad marka uga hortagaysaa si aadan xogtaadii u lumin maanta casharkeena intaas ku soo gabagabeynayna waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qofkii aan fahmin waxa weeye uu ku soo celiyo karaa insha Allah taala